sanadka 2023 ku beegan boqol guuradii aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga ayaa sidoo kale ah sanad ku calaamadsan isbedel dhab oo ay gaadho dawladda Turkigu gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo dhaqanka waana barnaamijyada horumarineed ee ka jira ajendaha xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee wadankaasi qorshayaasha oo ku dhawaaqay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waana barnaamijyada xitaa qaybta ka ah ololayaashii dhanka doorashooyinka iyo abtidii dadweyne ee dastuurka wax laga bedelay barnaamijyadan oo ah higsiga 2023 ee dalkaasi Turkiga waxa kamid ah kow inay Turkigu kamid ahaadaan 10 wadan ee ugu dhaqaalaha badan dunida labo in dakhliga wax soo saarka gudaha ee GDP-ga loo yaqaan ee Turkigu uu sanadka gaadho 2 trilyan oo dollarka Mareykanka saddex in dakhli sanadeedka qofka muwaadinka ee wadanka u dhashay uu gaadho 25 kun oo dollarka Mareykanka sanadkiiba afar in hoos loo dhigo shaqo la'aanta 5% shan in 100% la gaarsiiyo hagaajinta adeegyada caafimaad ee muwaadinku heli doono lix in sanadka 2023 si kama dambaysa looga gudbo ku tiirsanaanta shisheeyaha ee dhanka qalabka gaashaandhigga toddoba in la ballaariyo shabakadaha tareenada casriga ee dheereeya sideed in dekedaha Turkigu ka mid noqdaan 10 dal ee ugu dekedaha waaweyn dunida sagaal dalka Turkigu waxa uu qorsheysay sanadka 2023 in dalxiisayaasha sanadkii soo boqdaa wadankaasi gaadhaan ilaa 50 milyan oo dalxiisayaal ah dakhliga dalxiiska ka soo gali doonana uu sanadkii noqon doono ilaa 50 bilyan oo dollar taasoo ka dhigi doonta Turkigu inay ka mid noqdaan 5 wadan ee ugu haboon in dalxiis lagu tago 10 sanadka marka la gaaro Turkigu waxay kaalin joogto ah ku yeelan doonaan oo door muhiim ah ka ciyaari doonaan arrimaha dhexdhexaadinta khilaafaadka iyo isku horimaadada heer gobol iyo heer caalami sanadka aynu ka hadlaynaana waa sanadka uu dhamaanayo heshiiskii Lausanne ee Turkiga ka mamnuucay adeegsiga qayb ka mid ah xeebaheeda iyadoo si buuxda u mareyn doonaan xeebahooda kala duwan